waan ku faraxsanahay xaqiiqiyan inaad aqbasheen hawshan aad u istaagteen aad doonaysaanna inaad ka mari dhashaan oo aad wax ka keentaan dadka Soomaalida ahna waa fursadda kaliya hadda u taala haddii ay awal rabeen inay wax ku darsadaan dhismaha dalka iyo horumarkiisa waxa ugu horeeya amniga inay nagala shaqeeyaan oo dhaqaale ku bixiyaan sidii ciidamadana niyadda ugu dhisi lahayn kii dhaawacma aan wax u gaarsiin lahayn kii dhinta caruurtiisa iyo agoontii aan ka warqabi lahayn taas waxay keenaysaa marka kuwa hadda dagaalamaya oo frontiga ku jira inay ku dhiiradaan ay yiraahdaan shacabkii Soomaaliyeed yaa idinka dambeeya dawladdii baa idinka dambaysa ee dalkiina difaacda reerihiina caruurtiina difaacda gurihiina difaacda inay yiraahdaan bacdama ay og yihiin annaga inaan garab u nahay oo aan daba taagannahay annaga markaan leenahay waxaan ka wadaa shacabka Soomaaliyeed dibadda iyo gudahaba iyo dawladda marka waa mahadsantihiin aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinayaa